السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أطبع دي السلام يا دمان distributors كريفا ليفين برودكتي فيديو كان داون دونا إن شاء الله جديد هانتين waxa walaalayaal su'aalo fara badan ay ka soo noqdeen aynu doonayna insha Allah bal maanta in mar labaad ku celino iyadoo mar horna la duubay qofku markuu uu joogo yani wadan si uu wadan kale uga sameyn lahaa by online uu qof alaab uga iibin lahaa meeshu doonaha joogo ama dhulkii Soomaaliyeed ha joogo ama Carbaha ha joogo ama Yurub ha joogo linkigan cid kasto oo wadamada kala duwan kala joogta way isticmaali kartaa wadan alla wadanka doontana waxbaad kaga iibin kartaa bay ka dhigan tahay marka maxaynu sameynaynaa walaalayaal linkigu waa kan qofku markuu kuu soo diro linkiga ID-ga la raaciyaa ID-gaaga inta kale way samaysan tahay just ID-gaaga baad xagga daba ka raacinaysaa tusaale ahaan imika ID-gaygu uu ku qoran yahay dib baan haddana ugu qori doonaa 971 inta marka aan qoro waxaan u dirayaa marka qofkii aan doonayay in uu ku adeegto oo uu dalabkan uu ku sameeyo laba mid baa sameyn kartaa marka ama inaad qofkii u dirto oo qofkaas qof isagu academic uu yahay oo garanaya kadib markuu linkiga ku dhufto aad tusto oo aad saab ku geliso ama inaad adigu dalabkii u sameyso oo adigu marka dalabka u sameynayso qofkaas waa inaad haysaa akoonkiisii numberkiisii banka iyo taariikhda u dhacay waxa waa inuu ku soo gudbiyaa sad payment-ga aad u sameyso ama haddii isagu payment-ga sameynayo waa in aad u sheegtaa oo aad tustaa ku talada qaabka u soo gal insha Allah tusaale ahaan imika linkigi buu ku dhufanaya marka qof linkigi markuu ku dhufto automatic wuxuu u tagayaa website-kii shirkadda ee weynaa buu tagayaa website-ka markuu tago qofkii wuxuu ogaanayaa marka inuu soo dhex galo website-kii kadalik sidoo kale uu soo baxaya website-ku markuu soo baxo waa imika wuxuu soo qoray waxaad wax ka iibsanaysaa Abdikariin Nuur oo yahay ID-giisuna waka 97130971095 waa qofkii marka haddii inta uu soo saaro bes qofkii muxuu tagayaa marka hadaba wuxuu tagayaa halkii wax ka iibsanaya wadankee buu doonaya in wax ka iibsado halkan yare baa lagu dhufanaya wuxuu qofku ku dhufanaya halkan hoose sidoo wadanka uu soo bedelo imika uu doonayo qaaradihii weeye kuwani tusaalahan kale waa wadan Yurub ku yaala Europe aynu ku dhufan qaaradaha ku dhufan haduu Latin America ku yaala Latin America haduu Middle East iyo Middle East haduu North America hadba ku yahay kadib Europe aynu oranna waxaad ku soo dhufan kartaa hadda doonto wadankii marka wadan alla wadanka doonto ayaad ku dhufanaysaa oo qofkaasi uu joogo isagu tan tusaalahan United Kingdom kan dhahno oo UK ah UK buu ku geenay marka qofka halkaas uu ka adeeganaya qofkii markuu adeegto product-giisa uu dalbaday oo saladiisa uu ku rito adiga marka automatically email ba ku soo dhacay qofkaas inuu adiga ID-gaagi uu ku adeegtay mar labaad buu noogu soo celiyay qofkaas ID-giisa ku gadanaysa sax haddaba qofkii suu u sameeyo shop waa inuu shop gareeyaa oo shoppingkiisa u gala shop buu ku dhufanayaa kadib wuxuu isagu doonayay buu ku dhufanaya tusaale ahaan immunity health qaar baa ku jira kaniinadii ma new products ka ma drinks ma b products oo product qofku isagu doonayay skin care xaggan bay ku soo dhex jiraan product isagu doonayay haddii skin care ka ku dhufano skin care ka dhammaan wixii maqaarka la marsanayo dhan baa iyagu ku jira marka qofku markuu saa ugu dhufto waxa uu soo baxaysa productiyadkii kala duwanaa ayaa isku soo dhigaya oo soo baxaya uu select gareysanaya marka hadba ku doonayo ama hadduu bis wan kaliya ka doonayo ama hadduu dhowr xabad doonayo ama hadduu inta shay uu ka doonayo isaga tigareysanaya kadib saladiisa ayaa ugu wada dhacaysa dhammaan shay kasto isagu uu tigareystay oo doonayo inuu business ku darsado mar walbana uu sheegaya inuu qofkan uu ka adeeganaya qofka uu yahay kadib tusaale ahaan oo kale wuxuu ku dhufanayaa waa kuwan skin care marka qaybtii uu doonaya sunscreen buu doonaya tusaale ahaan oo kale arbag baad leedahay qofku marka baagiisa toos ugu dhacaysa waa ka sunscreen baad ku darsatay haddana waa kan propolis buu ku daray qofkii ka soco sax labadaba haddaynu ku eegno ibi blank buu ku darsaday kadib qofku markuu intaa uu dhameeyo continue uu dhahaya marka continue waxa weeyaan product-gii wixii uu dhameystay qofku already uu soo gabagabeeyay inuu continue sii dhaahdo oo uu ka sii socdo si uu saladiisa u gudbalo saladiisa waa tan check out buu leeyahay marka check out markuu dhahdo waa inuu dee lacagtii bay gareeyaa tusaale ahaan kale wuxuu imika wadiibso waxa isku noqday koob iyo konton pound bay isku noqotay check out haddii sii dhahdo waxa weeyaan inuu qofkii uu dee lacagtii bixinayo ama qofku waxaad u diraysaa videogan oo keliya u diri kartaaba videogan uu dir si isagu u arko kadib waxaad samayn kartaa haddii uu ku weydiiyo ID-ga iyo password-ka u sheegaysaa qofka haddii kalena as customer buu qofka uu ku adeeganaya insha Allah marka saas samaynaysan walaalayaal haddii la xidhaado
haddii imka tusaale ahaan oo kale uu soo saaray sidan ID-gii iyo meesha passwordka la gelinayay, hadduu qofku ID-giisi uu ku adeeganaya ID-gaagad u yeedhinaysaa markaa. haddii kale waxaad oranaysaa halkan uu ku taalo qofkii continue with guest check out, waa qof gastiya oo anigii soo booqday doonaya inuu xiga iibsado, saasoo kale ay u dhigan tahay. marka continue with guest out baad ku dhufanaysaa, kadib markuu wuxuu kuu soo saaraya marka meeshii aad wax ku beegaraynaysa iyo qaabkii aad u beegaraynaysa wixii oo dhan buu kuu soo saaraya. waa kan marka qofku tusaale ahaan si ay shirkaddu ula hadasho oo dee meeshiina deliveryga loogu geeyo waa inuu qoraa magaciisii. xaggaa sare wuxuu ku qorayaa adresskii, ku qori magaciisii koowaad iyo magacii labaad buu qori doonaa. kadib xaggan mobile numberkiisana wuu ku qori, emailkiisana wuu qorayaa, next buu odhanaya. marka halkan labada meeloodna tig buu saaraya, kadib next buu odhanaya. next markuu dhaa kaarkii unbaa usoo baxaysa marka inuu beegareeyo alaabtu iibiyo. wuxuu u gelinayaa xogtana waxa weeyaan dee qofkii si adresska loogu geeyo alaabta waa delivery. xaggaas waxaa ku tahay delivery information, waa delivery information qofkii sidii dalabkiisa loogu geyn lahaa insha allah. halkaas saas insha allah ku wadaysaan walaalayaal.